السلام عليكم. haddaad ku cusubtay kanaalka Nafaqa Channel fadlan taaba calaamadan subscribe-ka halkan. intaas kadib wax kasta oo aanu soo dhignaa si uu kuu soo gaadho taaba calaamada gambaleelka ama challenge-ka halkan. midhaha loo yaqaan cherry waa midho fresh ah oo waliba tiro badan waxayna ka tirsan yihiin qoys dhireedka loo yaqaan Rose family. waa midho qurux badan oo dhadhan wanaagsan leh laakiin amaanta aan tiriye hala yaabin maxaa yeelay midhaha loo yaqaan cherry waxa ay dhab ahaantii u wanaagsan yihiin caafimaadkaaga balse haddii su'aal la iska weydiinayo midhahan jawaabtu waxay noqonaysaa haa maxaa yeelay 1000 jeer ayay u wanaagsan yihiin caafimaadka. ugu horeyn midhahan loo yaqaan cherry waa midho aad xoog badan oo waxa laga helaa maadada jidhka sunta ka saarta ee loo yaqaan antioxidant sidoo kale waxa ay la dagaalamaan caabuqyada jidhka soo weerari kara. geesta kalena midhahan loo yaqaan cherry waa midho u wanaagsan qof kasta oo raba inuu hurdo raaxo la seexdo maxaa yeelay waxa ay dhiirigeliyaan isla markaana kor u qaadaan rabitaanka hurdada ee qofka maxaa yeelay waxa ku jirta maadada loo yaqaan melatonin taasoo ah maado jidhka dejisa isla markaana hurdo u keenta qofka. dhinaca kalena midhaha loo yaqaan cherry waxa ay u wanaagsan yihiin dadka qaba xanuunada ku dhaca laabatooyinka iyo kala goysyada sababtoo ah daraasado badan oo laga sameeyay midhahan waxa ay soo bandhigeen in isticmaalka midhaha loo yaqaan cherry uu u wanaagsan yahay kala goysyada iyo laabatooyinka. haddaba haddaad si joogto ah midhahan loo yaqaan cherry aad juuska aad samaysanayso ku dhex darto ama juus gaara aad u samaysato isaga waliba aad isticmaasho waqtiyada aad wax cunayso taasi waxa ay ka yaraynaysaa xanuunka kala goysyada iyo laabatooyinka. dhinaca kalena midhahan loo yaqaan cherry waxay hoos u dhigaan cudurka cholesterolka maxaa yeelay daraasad mar dhow la sameeyay ayaa soo bandhigtay cabitaanka midhaha cherry ee macaan inuu hoos u dhigo cudurka cholesterolka iyo waliba cholesterolka xun oo loo yaqaan isagana LDL. dhinaca kalena midhaha loo yaqaan cherry waxa ay kor u qaadaan caafimaadka maskaxda maxaa yeelay xanuunada iyo isbedelka ku dhaca maskaxda sida xanuunka Parkinson's iyo waliba xanuunka kale ee loo yaqaan Alzheimer's intooda badan waxa sababa fikirka iyo walibana qayb badan oo kamid ah stresska ama warwarka. sidaa aawadeedna midhahan macaan ee cherryga loo yaqaan iyo juuska laga miiraaba waxa ay ka kooban yihiin xaddi aad u badan oo maadooyinka sunsaarayaasha ah taasoo unugyada maskaxda ka ilaalinaysa inay dhibaato soo gaadho. weli waxaynu ku guda jirnaa faa'iidooyinka caafimaad iyo waxtarka laga helo midhahan loo yaqaan cherry. haddaba haddii muuqaalkan uu ku cajabiyey fadlan like iyo share nagu taageer. dhinaca kalena daawadayaal midhahan loo yaqaan cherry waxa ay sare u qaadaan difaaca jidhka sababtoo ah juuska macaan ama cabitaanka macaan ee midhahan cherryga loo yaqaano waxa ay qani ku yihiin fiitamiino badan iyo macaadin badan taasoo la cadeeyay inay sare u qaadaan difaaca jidhka. dhinaca kalena midhahan loo yaqaan cherry waxa ay la dagaalamaan cudurka kansarka waliba ka hortag fiican ayay u yihiin sababtoo qaar badan oo kamid ah maadooyinka jidhka sunta ka saara oo laga helay cabitaanka midhaha loo yaqaan cherry ayaa waxa ay meesha ka saaraan isla markaana la dagaalamaan wax kasta oo ku lug leh koritaanka cudurka kansarka. sidoo kalena midhahani waxa ay xakameeyaan isla markaana hoos u dhigaan xanuunka dhiigkarka. ugu dambeyntiina midhahani waxa ay la dagaalamaan isla markaana hoos u dhigaan miisaanka qofka ee ka soo horjeeda quruxda iyo waliba caafimaadka.